shacabka ka soo barakacay isku dhacyada deegaanka Benishanguul Gumus ayaa ka cabanaya in aanay dawladda ka helin wax taageero ah. sanadka cusub ee 2021 ayaa caalamka looga dabaaldegay xilli ay weli taagan tahay dhibaatada COVID-19. galab wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada warka galabnimo oo idinkaga imanaya telefishinka qaranka Itoobiya xaruntiisa magaalada Addis Ababa. warka waxa aad ku daawan doontaan kulan wacyigelin ah oo ka dhacay deegaanka Benishanguul waa deegaanka Gambela ayaa waxa looga hadlay sidii looga qaban lahaa daryeelka ku aadan caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee deegaankaasi. shirkani ayaa wacyigelinta ayaa ka qayb qaadanayay xafiiska caafimaadka ee deegaankaasi iyo waliba shirkadda lagu magacaabo Hailemariam Foundation. Maxamed Maxamuud ayaa faahfaahinaya. hay'adaha ka howlgala daryeelka caafimaadka hooyooyinka iyo carruurta iyo waliba ka hortagga cudurrada cunto xumada ka yimaada ee carruurta saameeya waxaa ka mid ah hay'adda Hailemariam iyo Roman Foundation. haddaba hay'adda oo la kaashanaysa wasaaradda caafimaadka ayaa ka bilowday olole ballaaran oo wacyigelin ah oo dhaqdhaqaaq wacyigelin ah laga fulinayo deegaanka Gambela. madaxweynaha deegaanka Gambela Mudu Ujulo oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay qorshaha wacyigelinta ee caafimaadka hooyooyinka iyo carruurtu faa'iido weyn u leeyahay bulshada oo si weyn looga qayb qaadanayo. masraxan iyo wadatashiga ee lagu wacyigelinayo sidii bulshada ay uga faa'iideysan lahayd caafimaadka hooyooyinka iyo daryeelka carruurtu waa mid wanaagsan oo bulshada faa'iido weyn u horseedaya. waxaana uu ku baaqay in ay ka qayb qaadan doonaan mas'uuliyiinta ilaa heer sare ilaa heer tuulo ay ka qayb qaadan doonaan doorka looga baahan yahay iyo kaalinta looga baahan yahay inay kaga qayb qaataan sidii loo caawin lahaa caafimaadka hooyooyinka iyo carruurta. dhinaca kale wasiiradda caafimaadka Dr. Liya Tadessa ayaa halkaasi ka sheegtay si wax looga bedelo caafimaadka hooyooyinka iyo carruurta waxaa loo baahan yahay qorshe ballaaran oo ay dawladdu si weyn ugu diyaargarowday oo ah qorshahaasina mid wax weyn laga qabanayo daryeelka caafimaadka hooyooyinka iyo carruurta. taasina ay dawladdu ay bilowday in ay wada shaqayn la yeelato hay'adaha sida gaarka loo leeyahay ee isla markaasina sidii loo daryeeli lahaa caafimaadka hooyooyinka iyo carruurta. qorshahaasina faa'iido weyn laga soo hooyay. sidoo kalena waxay ammaan weyn soo jeestay hay'adda Hailemariam iyo Roman Foundation ay door weyn ay ku leedahay wax ka bedelidda adeegga caafimaadka hooyooyinka iyo carruurta. arrintaasina mid ay dawladdu si weyn u soo dhaweynayso ay tahay oo dawladdana ay kala shaqaynayso qorshahaasi sidii loo gaarsiin lahaa bulshada dhammaanteed. dhinaca kale Marwo Roman Tasfaye oo ah agaasimaha hay'adda Hailemariam iyo Roman Foundation ayaa sheegtay in haddii la gaarsiiyo caafimaadka daryeelka hooyooyinka iyo carruurta meel walba waxaa la odhan karayaa adeegga caafimaadka hooyooyinka iyo carruurta si buuxda ayaa loo gaarsiiyey bulshada. arrintaasina si looga guulaysan lahaa oo loogana guulgaadhi lahaa qorshahaasi loo baahan yahay dadaal ballaaran inaanu qabanno annagoo iskaashanayna. dhinaca kale wasiiru dawlaha wasaaradda carruurta haweenka iyo dhalinyarada ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ayaa iyaduna sheegtay in ay sii xoojin doonto qorshaha lagu taageerayo hay'adda Hailemariam iyo Roman Foundation sidii ay uga guulgaadhi lahayn qorshaha daryeelka caafimaadka hooyooyinka iyo carruurta. golaha xuquuqda bini'aadamka ee dalkan Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in isku dhacyadii ka dambeeyay kadib dilkii fanaanka Hachalu Hundessa ay qaybo badan oo kamid ah deegaanka Oromiya ka dhaceen tacadiye fara badan oo ka dhan ah xuquuqda bini'aadamka. golaha ayaa warbixintani uu soo saaray waxa uu ku muujiyay in falkaasi amni darrada ahaa ee ka dhacay qaybo badan oo ka tirsan deegaanka Oromiya ay jireen dad iyo waliba kooxo ka qayb qaatay kuwaasi oo geystay xadgudubyo qaadan kara dabeecadaha xuquuqda aadanaha ka dhanka. arrintani ayaa waxaa lagu xaqiijiyay baaritaan uu golahu sameeyay. golaha ayaa waxa uu tilmaamay in natiijada baaritaankaasi ay ka soo baxday howlgal laga fuliyay 40 meelood oo deegaanka Oromiya ka tirsan isla markaasina waxaa diiradda lagu saarayay 3 maalmood ee ka dambeeyay 22kii bisha sano ee 2012. shacabka ka soo barakacay deegaanka Benishanguul Gumus isku dhacyada halkaasi ka dhacay ayaa waxa ay tilmaameen in aanay wax taageero ah ka helin dawladda. waxaa warbixintan la socodsiinaya wariyahayaga Xamdi Maxamuud.
magaalada Matahua waa magaalo xuduudeed kala badha deegaanada Axmaarada iyo sidoo kale deegaanka Benishangul Gumus waxaana soo gaadhay barakacayaasha ka soo barakacay degmada Dhibaadi ee deegaanka Benishangul Gumus kadib markii ay saameeyeen colaadihii dhawaantan aagaasi ka dhacay haddaba shacabkani soo barakacay ee in muddo ah ku noolaa goobahaasi ayaa sheegay in colaadaasi soo barakicisay ay salka ku hayso maamul xumo aagaasi ka jirtay 43 ዓመት ይሆናል ከአሁኑ ቦታ የኖርኩበትን በኔ እድሜ 43 ዓመት ከኖርኩበት ቦታ እንደ ድሮ አይደለም እየባሰ ነው የሚመጣ እንጂ እየተሻለ አይመጣም shacabkani soo barakacay ayaa cadeeyay inuu xaalku marba marka ka dambaysa ka sii darayay xasilooni daraduna ay ahayd mid in muddaha soo jiidintay sidoo kalena waxa ay walaac ka muujiyeen xaalku sida uu noqon doono maadaama ay yihiin dadkani soo barakacay kuwooda u nugul ሁለቴን ስንለፋውለን ስንደክምለን መጫት አለች ነፍሰ ጡር አለች መጨረሻ ላይ እኔ ምን እንደሆነ እንጃ barakacayaashana ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen inay garab istaageen shacabka magaalada Matahua balse aysan wax garab istaag ah ka helin dhanka dawladda የተሰራለት እኔ ያየሁት ነገር የለኝም ግን ህብረተሰቡ አካባቢው እንጀራ ዳቦ ምናምን ገዝቶ ተቀብሎና በወቅቱ ማለት ነው ወዲያውኑ ፈርሰን ስንመጣ አሁን ደግሞ ከአቅም በላይ ሆነ mid ka mid ah dhalinyarada magaalada Matahua ee ku hawlan sidii loo kaalmeyn lahaa shacabkani ka soo barakacay deegaanka Benishangul Gumus ayaa sheegay in ay dawladdu ilaa iyo haatan aysan wax jawaab ah oo ku aadan shacabkani soo barakacay ka bixinin waxana uu sheegay in shacabka magaaladaasi Matahua la garab taagan yihiin hiil iyo hooba ከ15 እስከ 20 አካባቢ የሚጠበቅ ማህበረሰብ አለ መጀመሪያ ነክቶት ያለፈ ቀበሌ ይሄን ነው አብዛኛው ስደተኛ ማህበረሰቡ dhankiisa madaxa xafiiska ka hortaga khataraha iyo masiibooyinka ee gobolka Hawi ayaa sheegay inay ku hawlan yihiin sida arintani barakacayaasha wax uga qaban lahaayeen isla markaana ay diyaarinayaan goobo ku meel gaar ah oo ay shacabkani soo barakacay deegaan wasiirka gaashaandhigga ee dalkan Itoobiya Dr. Qanna Ayadata ayaa waxa uu ku goobaabiyay macadka booliska in looga baahan yahay in uu diiradda saaro sidii loo furin lahaa daraasaadka iyo waliba cilmi baadhisyada kala duwan ee kor u qaadi kara kartida ciidanka booliska wasiirku waxa uu hadalkaasi ka soo jeediyay kadib shirweyne daraasadeed oo heer qaran ah kaasi oo markii ugu horeysay lagu qabtay magaalada Sabata isla markaana shirkani waxa uu ahaa mid uu diyaariyay ama ay diyaarisay kulliyadda booliska madaxa kulliyadda booliska kaaliye commissioner Getachew Itana ayaa waxa uu sheegay in shirweynahaasi la diyaariyay iyada oo maskaxda lagu hayo sidii loo fulin lahaa cilmi baadhis ku aadan xal u raadinta dhibaatooyinka kala duwan ee booliska isla markaana waxa uu sheegay in arrimahani ay yihiin kuwa kor u qaadi kara tayada iyo waliba howlgalka ciidanka ayaa lagu yiri warbixintaasi warka galabnimo ayaa aad daawanaysaan ee telefishinka qaranka howlfuliyaha guud ee maamulka kumeel gaarka ah ee deegaanka Tigray ayaa waxa uu sheegay in wakaaladda wararka ee ENA in howlaha gargaarka ee ka socda deegaankaasi Tigray ay u soconayaan sidii loogu talagalay Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi ayaa inala socodsiinaya warbixintan maamulka kumeel gaarka ee deegaankaasi Tigray ayaa waxa ay ku howladeen howlo ay kamid yihiin dib u soo celinta xasiloonida amniga dib u soo celinta adeeg bixinta kala duwan ee dadweynaha hubka dhigista iyo waliba iyadoo la aasaasay golaha kabineedka ee deegaankaasi Tigray golaha kabineedka ee deegaankaasi Tigray ayaa waxa la sheegay in ay iskugu jiraan xisbiye isku dhafa oo ka kooban xisbiyada ka dhaqdhaqaaqa deegaankaasi Tigray Dr. Mulu Naga howliyaha guud ee maamulka kumeel gaarka ee deegaankaasi Tigray oo u waramay wakaaladda wararka ENA ayaa waxa uu tilmaamay in shaqaalaha dawladda ay iyagu dhammaantoodba ku soo noqdeen goobahooda shaqo Dr. Mulu Naga ayaa sidoo kale waxa uu xaqiijiyay in maamulka kabineedka ee haatan la dhisay aynan ahayn kuwa matala koox gaar ah ama xisbi gaar ah balse ay yihiin kuwa isku dhafa oo ka kooban dhammaanba xisbiyada ka dhaqdhaqaaqa deegaankaasi Tigray የመንግስት ባለስልጣን ማለት የአንድ ፓርቲ የአንድ ወገን ብቻ ነበር አሁን ግን hoggaanka dawladda oo awal ahaa hal koox ama hal xisbi ayaa haatan ka kooban xisbi walba oo ka dhaqdhaqaaqa deegaankaasi arrintan ayaa ah markii koobaad laga hirgeliyay deegaankaasi Tigray waxaana arrintan ay fariin cusub u tahay dhaqdhaqaaqyada dhinaca dimuqraadiyadda ee haatan laga hirgelinayo deegaankaasi Tigray sidoo kale hadda kadib ma jiri doonto cid fikirkeeda lagu takoorayo cid walba iyadoo fikirkeeda wadato ayaa fikirkeeda lagu soo dhaweynayaa Dr. Mulu Naga madaxa maamulka kumeel gaarka ee deegaankaasi Tigray ayaa sidoo kale waxa uu
tilmaamay in howlaha dib u soo celinta iyo weliba gurmadka gargaarka bini'aadanimo ee deegaankaasi Tigray ay dowladda federaalka ahmiyad gaar ah ay siisay haatanna arrintaasi si dardar loo wado waxaana uu sheegay in maamulka kumeel gaarka ee deegaankaasi Tigray ay dowladda federaalka arrintaasi kala shaqeynayaan sidii loo gaarsiin lahaa dhammaanba goob walba u baahan in la gaarsiiyo gurmadka bini'aadanimo iyo weliba arrimaha ku aadan dib u dejinta sababta dagaafo ahun turu yeerano tajamruwal howlaha gargaarka bini'aadanimo si fiican ayay u socdaan gaar ahaan taageerada dowladda federaalka aad ayay u fiican tahay maamulkana waxay kaalin muhiim ah ay ka qaadanayaan taageerada dhinaca gaadiidka iyo weliba gaarsiinta guud ahaanba goobaha iyagoo u baahan in la gaarsiiyo gurmadka bini'aadanimo Dr. Mulu Naga howlfuliyaha guud ee maamulka kumeel gaarka ee deegaankaasi Tigray ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in haatan si dardar leh ku socdaan dayactirka adeegyada horumarineed iyo weliba kaabayaasha horumarineed ee kooxda TPLF ay burburisay በፌደራል መንግስት በሙሉ አቅሙ dowladda federaalka ayaa xoogga saartay dhammaanba dayactirka kaabayaasha horumarineed oo ay ka mid yihiin wadooyinka waxaana haatan socda dayactirka dhammaanba adeegyada horumarineed ee Adigrad, Adia, Adwa, Aksum, Shire iyo weliba dhammaanba kuwa kale ee deegaankaasi Tigray Dr. Mulu Naga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in haatan deegaanka Tigray dib loogu soo celiyay adeegyada kala duwan ee ka mid yihiin isgaarsiinta telefoonada biyaha leerka iyo weliba kuwa kale waxaana uu sheegay in maamulkani kumeel gaarka iyo weliba shacabka deegaanka Tigray ay haatan ay yeesheen wada hadallo isfahan kuwaas oo ay ka wada shaqeynayaan arrimaha dhinaca amniga hubka dhigista kobcinta dimuqraadiyadda iyo weliba sidii gabi ahaanba dib loogu soo celin lahaa adeegyadii horumarineed ee deegaankaasi Tigray وهجاك وكوذا بشا جانوري سنة 2021 warkana waxa ugu waaweyn shacabka ka soo barakacay isku dhacyada deegaanka Benishangul Gumus ayaa waxa ay ka cabanayaan in aanay wax gargaar ka helin dawladda hagaag daawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabaynaynaa warkii galabnimo ka daawanayseen telefishinka qaranka Itoobiya Maxamed Usmaan ayaa idin waramayay nabadgelyo shirkadda APH Partners waxay doonaysaa inay boosaska shaqo ee soo socday inay guddiga doorashooyinka qaranka u shaqaalaysiiso data entry operator qof haysta shahaadada digriga dibloma ama certificate kulliyadda ICT ama wixii la xiriira ICT isla markaana sita 2 sano oo khibrad shaqo ah maareeyaha farsamada ICT qof haysta shahaadada digriga ICT ama xirfad la xiriira oo wata 2 sano oo khibrad shaqo ah isku dubridaha doorashooyinka gobolada qof haysta shahaadada digriga oo ka soo qalin jabiyay kulliyadaha kala ah management public outreach mass communication logistics supply chain management ama wixii la xiriira iyo 4 sano oo khibrad shaqo ah ku xigeenka isku dubridaha doorashooyinka gobolada qof haysta shahaadada digriga oo ka soo qalin jabiyay kulliyadaha management public outreach mass communication logistics supply chain management ama xirfad la xiriira iyo ugu yaraan 2 sano oo khibrad shaqo ah xilliga codsiga shaqada la xareynayo waa 12 bisha Taasaas ilaa 29 bisha Taasaas sanadka 2013 goobta shaqada dhammaan xafiisyada doorashooyinka ee gobolada deegaanka dalka oo dhan si aad shaqadan u xireyso ama wixii faahfaahin dheeraad ah booqo bogga www.aph.global.com iyo www.nepe.org.et oo kaliya yasinow aragtidaada abo wajacay labuurte ahaw odagii naftayda ilmaan dhalay aabahooda ku aaminayno arrimihi yasiin aragtidaada abo wajacay labuurte ahaw odagii naftayda ilmaan dhalay aabahooda haddii aan qalgalno agtaadaba soo fadhiyo ahaatay sida nabno allah mahadaan iskale haddii aan qalgalno agtaadaba soo fadhiyo haddii aan qalgalno agtaadaba soo fadhiyo ahaatay sida nabno allah mahadaan iskale
jacaylku eediya dhagxumada ka dhowr ubaxa caashaqa gudoon midkaan ku ildoogsado ubaxa caashaqa gudoon midkaan ku ildoogsado adkee axdigiyo jacaylku eediya dhagxumada ka dhowr jacayl baa